wuxuu leeyahay Soomaalidu Afrikaanimadkii bay ka carareen bidi carab bay u carareen buu carabtiina way soo riixday intay laabta saa u qabatay bay iska soo riixaysaa buu yiri waa run inay sheekh la yiraahdo Dulmidiid oo Ingiriiska aan malaynayo joogo wuxuu yiri mar aan kaam ku xareysnaa jirnay 24 saac Iraaqiyiinta iyo Marookiyaanka iyo horta Soomaalinimad nooma haystaan bini aadanimada nooma haystaan buu laba inta badan dagaal baa dhexdhacay wayna isku heliyaan buu wayna dilaan buu dadka laba buu yiri inta badan dhibkoodu waxa weeyaan buu gabadha Soomaaliyeed ee diida waxay isku dalayaan inay dilaan ay kaga takhalusiyaan taana waxay kamid tahay qoorsiga ay ku qoorsanayaan ayay kamid tahay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay waxaan uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala gabadhaas naxariistii jannada inuu ka waraabiyo gabadhaasi waxay ku geeriyootay magaalada Kuala Lumpur oo caasimadda wadanka Malaysia waa gabar yar oo dadka qaarkood da'deeda waxay leeyihiin waxay dhan tahay 19 meelahaas oo wali 20kii uma buuxsan dadka qaarna waxay dhaheen ilaa 20 ayay ku jirtay iyo da'da 20yada dhexdeeda ayay ku jirtay da'deeda kullee sida ka muuqata waa dadka 20ka ilaa 25ka meelaha u dhaxeeya gabadha Ilaahay ha u naxariisto subhanahu wa ta'ala teedii dhabta ahayd ayay la kulantay oo way geeriyootay soo noqon mayso gabadhaasi ilaa qiyaam saaca way naga dhimatay gabadhaasi waa gabar Soomaaliyeed oo wadanka qaxoontinimo iyo rafaad ku tagtay reerkoodu sida hooyadeed aan warkeeda dhageystay mar rabi inaan soo qaato wararka hooyo inaan soo qaato runtii qalbi xanuun badan ayay leeyihiin murugo badan ayay leeyihiin marka hooyo waan dhageystay walaalkeed waan dhageystay dadkii familiga ah ee ka agdhawaay oo dhan waan dhageystay hadalladoodii iyo waxay kala hayeen meesha waan wada maqlay oo waan dhageystay kulligood runtii murugo badan ayaa dadku ka qaadaya dadkana mar walba ma fiicna wax murugo leh ama maaragtay inta badan leh mar walba murugo leh in loo soo gudbiyo ma fiicna gabadhaasi maqaaxi ayay ka shaqaynaysay oo reerkoodu Soomaaliya ayay ka tageen qaxoontinimo ayay u tageen wadankaas Malaysia sida hooyadu ay cadaysay marka waxay tiri intaan istul fadhin lahayn oo halkan aan wada joogi lahayn qaxoontigan oo ku wada silci lahayn oo ku wada rafaadi lahayn oo dismoral nagu dhici lahaa iyo moral jab nagu dhici lahaa anigu waxaan sameeynaa hooyo waa shaqayn meel baan geli meel baan ka xamaali maqaaxi bay shaqaale ka noqotay maqaaxidaas bay muddo ka shaqaynaysay maqaaxidii ay ka shaqaynaysayna ninkan ayaa joogo isna ka shaqaynay Iraaqiga ah nin Iraaqi ah ayay ka wada shaqaynayaan shaqaale badan baa meesha isugu imanayay ninka Iraaqiga ah gabadhaas wuu ka helay dabcan waxa laga yaabaa ka helitaanka ay ka helayaan Iraaqiyiinta iyo dadka saas oo kala ah dadka gabdhaha Soomaaliyeed ma ka aha inta badan rasmi kama aha oo xaqiiqada la soo tijaabiyaba waxay tahay si rasmiyan ah inayna gabdhaha helitaankoodu una ka ahayn inta badan helitaanka ay gabdhaha ka helaan waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed oo gabdha xijaaban qurux badan qofku markuu xijaaban yahay labiskiisu qurux badan yahay shakli qurux badan buu soo baxayaa laakiin markay guursadaan ama ay waxay guur ku magacaabaan ku sameeyaan way soo nacaan wayna soo tuuraan gabdhihii waxaad ogtihiin meel kasta oo caalamka gabdha Soomaaliyeed oo qaarkoodna si ay maanta ku soo baxaan la yahay qaarkoodna soo baxsadeen oo naftoodii la soo baxsadeen oo ku rafaadeen oo dhibaato badan loogu geystay qaarkoodna meeshii dhexdeeda bajaaliyad Soomaaliyeed haday joogtay ayaa lagu sii daayay ninkii wuxuu yiri sidoo uga helayba gabadhii waan ka helay gabadhiina waxay tiri anigu kulama qaadan kara ka helitaankaaga kulamada samayn kara xiriir bay ku tiri laakiin gabadhii wuxuu ugu hanjabay muddo dheer wuxuu ugu hanjabayay inuu gabadhan dili doono oo nafteeda uu haduu waayo oo wuxuu rabo uu ka waayo inuu nafteeda adduunka dhaafin doono waxay la wadaagtay jaaliyadii iyo saaxiibadii iyo dadkii oo dhan bay la wadaagtay waxay tiri ninkaas inuu idilaan ka cabsanaya uu hanjabaya mar kasta ayay tiri laakiin in laga taxadaro oo booliska loo gudbiyo oo laga soo qaato OP oo laga soo qorto warqad laga soo qorto ayaa fiicnayd waa la iska sahladay gabadhii marka akhiiran ayadoo shaqadii maalin soo galaysa maalinkii shalay ayadoo shaqadeedii soo galaysa ayuu ninkani dhexda ka helay wuuna dilay runtii xaqiiqatan sawirkeeda waan arkay thumbnailkana waa idinku soo saari doonaa xaqiiqatan waa sawir aad idin qiiro gelinaya gabadha si xun ayuu u dilay tooray ayuuna ku dilay gabadhii waxaan rabaa marka gabadhaasi way naga dhimatay ninkaas gacantiisa ayayna ku baxday Iraaqiga ahaa waxaan rabaa inaan wax yar idinka sheekeeyo
dhacdooyinkani waa dhacdooyin mar walba soo laabta oo gabdhaheena soomaaliyeed iyo nimanka ajaanibta ah mar walba ka soo laabta. runtii qiiradeedayna leedahay. qofkaagu markuu dhexdiina iska dishaan xataa waa laga sabri karaa, waa la isdaba raacan karaa, waa dhiig baa laga heli karaa, xoolaa laga heli karaa, waxaa laga heli karaa in loo qisaasto. laakiin qof ajanabi ah markuu kaa dilo, waddan ajanabina kaaga dilo, runtii xaqiiqatan waxa weeye waa geeri, 2 geeriyood, 3 geeriyood, 4 geeriyood bay kugu noqonaysaa. ruuxaagii ood weyday oo lagaa dilay, silic lagaaga dilay, ninkani laga yaaba inaan qofkan kaa dilay oo aadan waxba ka qabsan karin, dowladdan dhexdeeda lagaaga dilayna ayna waxba kuu qabanaynin. dhibkeeda iyo culayskeeda ay leedahay. waa dhowr geeriyood baa la dhihi karaa runtii xaqiiqatan, oo keenaysa hooyo iyo aabbo iyo walaaladiiba inay mar walba oohintu qalbigooda u ooyo, mar walbay arkaan qof cad ama qof ciraaqiyaad ay arkaan ay aad u qiiroodaan, ay aad maaragtay isu bedelaan, ama qofkii gabadha ka dilayba. runtii arrimahan oo kale in badan bay nagu soo laalaabteen, in badan bay dhaceen. aniga waxaan xusuustaa 2015kii waddanka Kenya oo kale waxaa ka dhacday dhacdo saas oo kale ah. nin Ethiopian ah baa wuxuu jeclaaday gabar Soomaali. aniga runtii xaqiiqatan xataa aan qaraabo ahayn, gabadhii ayuu jeclaaday. gabadhii lafteedu way ku qancin weyday nin Ethiopian ah inay iyadoo gabar Soomaaliyeed ah ay guursato. waa dad nin muslim ah, dabcan hadduu nin muslima yahay way guursan kartaa oo dhib male, laakiin acraaf baa jirta iyo dhaqan baa jira, mayna ku qancin inay guursato. gabadhii wuxuu sidanoo kale ayuu ugu hanjabay inuu dili doono. gabadhii maalinkii dambe iyadina way diiday runtii, oo waxay tiri anigu jacayl iyo xubbi iyo waxa iyo inaan xidhiir yeelana inama dhex mari karaan. gabadhii akhiiran wuu dilay. arrin dhacdadeedu dad badanna ay og yihiin oo i dhegaysan doona ay ka warhayaan oo og yihiin weeye. dad fara badanna runtii xaqiiqatan laga yaabo hadda hadday raadayaan waxay ka helayaan social mediaha ayay ka helayaan dhacdadaas dhacday. marar badanna way dhacdaa. haddaba markay Soomaali kugu samayso ama gabdho Soomaaliyeed lagu sameeyo waaba laga sabri karaa, lianna labadii qof waa loo kala aargudi. laakiin qof bini aadan oo ajnabi ah markuu kugu sameeyo mushkiladaheeda ayay leedahay. marka waxaan leeyahay dadkan horta carabta ah sideedaba Soomaalida, khaasatan ciraaqiyiinta iyo nimanka la yidhaahdo ii sheeg ciraaqiyiinta iyo marookaanka iyo aljeeriyaanka, masaari, dadkani carabtii sideedaba Soomaalida kama aaminsana. gabdhahooda iyo raggoodaba dad waxay aaminsan yihiin addoon abay ka aaminsan yihiin, oo kaama aaminsana qof bini aadan oo saxa kaama aaminsana. gabadhaadan yar xijaabanee yar asturanee jidhka quruxda badan markay arkaan hunguri baa ka qabani, guur iyo rasmiyan ugama qabanayso. runtii xaqiiqatan dhacdooyin baa dhacay, meel kastay ka dhaceen, Syriya ka dhaceen, Ciraaq ay ka dhaceen, Yaman ay ka dhaceen. gabdha Soomaaliyeed intii la guursaday markii dambe la yidhi addoon baa tahay, shaqee sida addoommada u shaqeeyaan u shaqee, oo xaasaskanaga kale u shaqee lagu yidhi, oo gabdhihii ugu quruxda badnaa ah, oo gabdhihii ugu aqoonta badnaa ah, runtii xaqiiqatan isu haystay inay yihiin adduunka role modelkooda inay yihiin isu haystay, ayaa waxay noqdeen addoon baa tihiin ee xaasaskanaga kale u shaqeeya ayaa lagu yidhi. meel walbay ka dhacday. marka horta inagu Afrikaan baynu nahay, laakiin Soomaalidu Afrikaannimadkeenna waxaad moodaa inaan ka boodsannahay. waxaa jirtay nin aan dhegaystay oo aan u malayn inuu adiga Afrikaan bu aha ama Kenyaan bu aha ama meel waha ma garanay, English buu ka hadlayay. aad baa loo celcelinaya beryahan dhexe Facebook iyo meelaha social mediaha. wuxuu leeyahay Soomaalidu Afrikaannimadkii bay ka carareen buu yidhi, carab bay u carareen buu yidhi. carabtiina way soo riixday, intay laabta saa u qabatay bay iska soo riixaysaa buu yidhi. waa run inaynu Afrikaannimadkeenna ku faanno, inaynu Afrikaannimadkeenna jid madow baynu leenahay, Afrikaan baynu nahay, dal ahaan, dad ahaan, dhinac walba Afrikaan baanu nahay. dadka carabaha diin baan na midaysa iyo islaamnimo ayaa na midaysa, ma aha welibana xagga dhaqan ahaan markii la yidhahdo waa dad aad iyo aad cunsuriyadooda u badan tahay. Soomaalida way cunsuriyeeyaan, Afrikaanka way cunsuriyeeyaan, alximaar al aswad bay ku yaqaanaan. qofkaaga kuugu cad runtii sheekh la yidhahdo waad ka dhegaysan kartaan hadda gabadhan arrimaheeda markuu ka hadlayo, sheekh la yidhahdo Dulmidiid oo Ingiriiska aan malay inuu joogo, wuxuu yidhi mar aan kaam ku xaraysnaan jirnay 24 saac ciraaqiyiinta iyo marookiyaanka iyo horta Soomaalinimad nooma haystaan buu yidhi, bini aadanimada nooma haystaan buu yidhi. laba inta badan dagaal baa dhexdhacay, wayna isku heliyaan buu yidhi, wayna dilaan buu yidhi dadka. laba buu yidhi inta badan dhibkooda waxa weeyaan buu yidhi gabadha Soomaaliyeed ee diidda waxay isku dalayaan inay dilaanba ay kaga takhalusiyaan. taana waxay ka mid tahay quursiga ay ku quursanayaan ayay ka mid tahay. quursiga ay ku quursanayaan ay ku arkaan inaad tahay qof aan bini aadam ahayn,
ninkaaga kama xishoonayaan oo kama cabsanayaan iyo reerkiini iyo walaalada iyo dadkaas ma ixtiraamayaan oo wuxuu u arkaa waxaan waxba ahayn oo addoon ah buu u arkaa gabadhaadana wuxuu rabaa hilib bisir camal ah inuu gacanta u qabsado usuu doono ka yeelo ayuu rabaa hadday diiddo uuba qaadan lahayn maxay kuu diidaysaa addoontan xumi buu leeyahay xataa kuwooda guursadaa i guur ma dhihi karna waxaan dhihi karnaa wuxuu rabaa inuu gabadhan gaaro ka yool gaaro unbuu rabaa hadduu ilaahay ilma kaga siiyo ama wax kaga siiyana silic iyo rafaad iyo dhibka dee aniga idinka sheekayn maayo idinka iga wada waaweyn idinka iga xogaarsan dhacdooyinka idinka iga badan runtii xaqiiqatan maalin walba ka dhacaya marka waxaan leenahay ilaahay gabadha ha u naxariisto safaaraddii soomaaliya way imaaday oo safiirkii soomaaliya oo gabadh ahayd meeshii bay imaaday boolista way la xidhiireen hawsheeda way ku jiraan waxay dhaheen anagu macluumaadka waan soo saxaynaa markaan soo saxaneen macluumaadka soo ururayna ayaan meesha la wadaagaynaa ilaahay xaqeedii ha ka siiyo gabadhaana ilaahay subxaana wa tacala ilaa xilligan lama aasin ooyo iyadoo ooyeysa ayaad arkaysaa social media oo dhahaysa lafaheeda aan aastay hala ay siiyo runtii xaqiiqatan taasaa sabir ah ayadana jaaliyadu ha ka qayb qaadata ayaan leenahay sidii gabadha ninkaana xuquuq loogaga heli laha kulle xuquuq la heliba maayo xaqiiqatan inaan la helaynin sheekh maxamed ninkii maraykanka sheekhi weynaa caalimka ah doctoorka ayaa ku geeriyooday ilaa maalinkan maanta xuquuqdiisii lama hayo xuquuq haba sugina laakiin qofkaaga inaad hesho aasato inaga lafteena jaaliyad ahaan iyo soomaali ahaan aan u garab istaagno hooyada iyo faamilka ay gabadhu ka dhimatay iyo aabbahaas iyo walaalada aan garab istaagno intaasa ugu macquulsan gabadheenan aan aasanno waalidkuna ay arkaan inagoo aasnay intaasa ugu macquulsan ilaahay ha ina ururiyo ummadda soomaaliyeed meel kasta oon joogno mashaakishan iyo dhibaatooyinkan faraha badan ee runtii xaqiiqatan maalinba maalin ka dambaysa murugada ku gelinayana ilaahay ha naga soo afjaro laba gabdhaheenna ogaada addoommaad u tihiin addoommo ayay idiin arkaan dadkan ajaanibtae cadcad eed inta badan ka daba dhacdeen gabdhaha soomaaliyeed ee dadka cadcad guursada xataa dadka cadcad ee macnaha hayste ee nidaam kale ma guursadaan runtii waad arkaysaan oday weyn nin nolosha ka yar dhacay nin qaab kale ah ayay guursadaan sababta oon ku lahayn bulshadiisaba laga yaaba inu waxbaba ku dhex ahaynba laga yaabaa kiibaa guumaysanayo addoon ka dhigaya marka dambe sababta dadkani marka horeyba ku arkaanba addoon ku arkaan dad aan kuf ku ahayn oon laa'iq u ahayn inay guursadaan bay ku arkaan adigaa waxaa isu haysataa iscajabinaya cajab waa tahay waad wanaagsan tahay laakiin dadkani waxay ku haystaan addoon bay ku haystaan biliis waxaan idin leeyahay gabdhaha soomaaliyeed annagana dagaal baad na gelaysaan qaracan baa jira meel walba qaracankaasaa ka taagan raggiinniina waa la quursaday idinkana waa la idin quursadee bal isdaba qabta raggiinnii iyo dhallinyaradiinnii iyo odayaashiinnii iyo dadkiinnii idin arkayey kuwiinka ku arkayena waad ka carartay kuwa aan ku arka addoonna waad u carartay deetana markaad isu diidana inay ku dilaan hadday aad ogolaatana inay ku salciyaan ay addoon ahaan kuula dhaqmaan taasay maraysaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa kilibkayga maanta